dagaal qaraar ayaa dib uga qarxay deegaanka Dacawali ee gobolka Jarar ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya halkaas oo ay ku dagaalamayaan dad shacab ah iyo sidoo kale ciidamada ammaanka ee Liyu Police ee dowlad deegaanka kuwaasi oo la sheegayo inay isku adeegsanayaan hub leh noocyo kala duwan isla markaana uu ka dhashay dagaalka durbadiiba qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac labadan dhinac ayaa maalinimadii shalay waxaa dhexmaray dagaalkii ugu cuslaa oo soo bilowday xilli subaxnimo ah isla markaana soo gaaray salaadii cishe iyadoona halkaas dagaalkii ka dhacay ay ku geeriyoodeen in ka badan 50 ruux halka tiro kale oo intaasi ka badan la sheegay in dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen laakiin loo kala qaaday deegaano badan oo ay ka mid yihiin Beelguwadle Hargeysa iyo meelo kale oo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ka mid ah saaka waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada Liyu Police weerar ay ku qaadeen dad shacab ah oo ku sugnaa halkii uu dagaalka ka dhacay kuwaasi oo la tilmaamay in iska caabin xoogan ay sameeyeen waxaana la sheegayaa in dhibaatada halkaasi ka jirta ilaa iyo hadda aysan jirin cid soo kala dhaxgashay dagaalkan ayaana salka ku haya arrimo dhul oo dhinacyadan ay isku hayaan isla markaana ku yaala deegaankaasi Dacwali ee gobolka Jarar si gaar ah deegaankana u hoostaga degmada Yoocale ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya wararka waxa ay sheegayaan in dagaalka saaka uu ka culus yahay kiishale isla markaana ay dhici karto in tiradii dhimasho ee shalay iyo midda dhaawac ee ka dhalatay ka badan ay ka dhalan karaan maadaama dagaalku uu aad u qaraar yahay isla markaana dhinacyadu ay kala heleen hubkii ugu cuslaa iyo sidoo kale gurmad xoogan oo uga yimid deegaanada ay ka soo kala jeedaan Somaliland ayaa dagaalkaasi ku eedeysay dowlad deegaanka si gaar ah ciidamada Liyu Police in ay u adeegsanayso ciidamaha beeleed u abaabulan isla markaana dadkaas shacabka ah weerar ku qaaday waxaasi wararku ay sheegayaan in ilaa iyo hadda wax warar ah aysan ka soo bixin dowlad deegaanka Soomaalida oo lagu eedeynayo dagaalkan in ay gadaal ka riixiso dadka shacabka ah ee deegaankaasi Dacwali degan waxaa la sheegay in deegaan ahaan ay ka soo jeedaan Somaliland taasi oo keentay in dadkii dhintay qaarkood la geeyo Hargeysa iyo sidoo kale Beelguwadle halka kuwa kale ee dhaawac ahna aan laga soo bixin qaarkood dowlad deegaanka si gaar ah deegaankan uu dagaalka ka dhacay ee Dacwali lagu magacaabo horay deegaankan tuulooyin ku hareereysan iyo kuwa kale oo hoostaga gobolka Jarar waxa uga dhacay dhacdooyin fool xun kadib markii ciidamada Liyu Police in dad shacab ah ay masjid ugu galeen kadibna ay kala soo baxeen kuna toogteen hal goob sidoo kale waxaa jira caruur iyo habeen iyagana isla sidaas oo kale lagu toogtay deegaan lagu magacaabo Jaamac Daawud taasi oo sii kordhisay xiisadan u dhaxaysa dhinacyadan si gaar ah Dacwali deegaankan lagu magacaabo iyo sidoo kale ciidamo booliis ah ama Liyu Police ah kuwaasi oo ah kuwa ammaanka dowlad deegaanka